Tani waa qisadayda. Waxaan ahay wiil 25 jir ah. Magacaygu waa Mustaf. Waxaa igu dhacday qiso aad u naxdin badan. Waxaana Alle iga baray cashar. Haddaba waatan ay la dhageyso. Hooyo waxa ay ahayd qof waayeel ah. Anna waxaan gaaray da'da guurka. Dabcan kamaan fiirsan guurkayga oo waxaan iska guursaday gabar. Waxaana la dagay hooyo. Xaaskayga waxa ay aad u nacbaneed hooyaday. Wayna igu diri jirtay had iyo jeer. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan ka imid shaqada anigoo daalan. Waxaan u soo galay xaaskayga. Sidii caadada u ahayd waxay igu dirtay hooyaday. Anna shaydaan baa i qaaday. Waxaan u carooday hooyo. Waxaana soo aaday hooyo xaggeeda si aan kula dul dhaco xanaaqayga. Sidii ayaana sameeyay. Intaa ugumaan ekeenine intaan kaxeeyay ayaan geeyay buur dusheeda bal si aan u dilo hooyaday macaan. Intaas kadib hooyo waxay iga codsatay inay 2 ragcadood oo salaad ah dukato. Waan u ogolaaday. Wixii markaas ka dambeeyay waxaan isku arkay anigoo buurta ka sii dhacayo. Ma aqaan wax baa miirka iga qaaday kadibna iga tuuray buurta. Isla markiiba hooyo ayaan u qeelshay. Allah naxariista hooyo bal fiiri. Hooyo isma dhihin waa kii hadda ku dili rabay ee waxay isla markiiba u qeelo dirsatay dadkii meesha ka dhawaa. Laakiin nasiib xumo dadkii soo ajiibay qeeladii hooyo cid i caawin kartaa waa laga dhex waayay. Hooyo waxa ay aaday culimadii xaafadeena arrintiina ugu warantay. Iyagana waxay u sheegeen in ay cidina wax ii qaban kareenin ilaa inay iyada ii duceyso maahane. Wax yar kadib Alle waa ii fududeeyay inaan ka soo baxo meesha. Hooyana waa la soo wacay si loogu sheego arrinta dhacday. Farxad darteeda ayadoo degdegaysa ayay ii timaaday. Wixii markaas ka dambeeyayna waxaan ahaaday mid waalidkiisa aad u jecel. Sheekadayda halkaas ayay ku eg tahay.